maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa toddobaadkii la soo dhaafay weerar nafti halignimo ah waxa ay ka geysteen ex control afgooye halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qofood oo dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaasoo argagixisadu ay la bartilmaameedsadeen qarax gaari laga soo buuxiyey tiro intaas ka badan ayaa ku dhaawacmay weerarka al-shabaab ayaa shuxisood la'aana u sheegtay inay iyaga ka dambeeyeen weerarkaas waalidiin ayaa carruurtooda ku waayey carruurna waxay waayeen waalidiintooda islaamku muxuu ka qabaa ficilada argagixisada al-shabaab ay had iyo jeer ku bartilmaameedsadaan dadka bulshada ah ee aan waxba ka galabsan maxaase lagu tilmaami karaa jawaabtii ay al-shabaab ka bixiyeen weerarkii dhacay toddobaad ka hor qodobadaas iyo qodobo la xiriira ayaan barnaamijka xogta xagjirka ee toddobaadkan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a qoysaskii noloshooda ay saamaynta ku yeesheen weerarkaas iyo sida xaaladoodu tahay ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu allaydmo xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka xogta xagjirka ayaa qayb ka noqon doona hadduu allaydmo mar kale iyo barnaamijkii xogta xagjirka ee toddobaadkan SN TV iyo Radio Muqdisho aan ku bilaabay daawadayaal barnaamijka xogta xagjirka ee telefishinka qaranka Soomaaliya iyo Radio Muqdisho qodobka ugu horeeya al-shabaab waxa ay toddobaadkii la soo dhaafay weerar nafti halignimo ah ka geysteen ex control afgooye halkaas oo qarax gaari laga soo buuxiyey ay kula bartilmaameedsadeen goob aad u mashquul badan oo dad fara badan oo arday iyo dad kale oo xamaalata ay ku sugnaayeen waxa ku dhintay ku dhowaad 100 qofood oo dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo al-shabaab ay si cad u bartilmaameedsadeen waxay dhinaca kale al-shabaab sheegeen inay iyaga ka dambeeyeen wixii dhacay haddaba maxaa dhacay maalintii sabtidii ahayd ee 28kii bishii December ee aan soo dhaafnay ex control afgooye iyo saameyntii ka dambeysay xasuuqa ku dhowaad 100 qof iyo dhaawaca in ka badan 150 muwaadiniin Soomaaliyeed ayay dhiigooda aroor hore u daadiyeen si xaq iyo diintoona ahayn maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab waxa ay foolka ku dhaqdeen dhiigga muslimiin maati ah oo u kala hayaamayay goobahooda waxbarashada ama shaqooyinkooda waxa ay ahayd meel u dhow busteejo baabuurta laga raaco oo ah aaga ex control afgooye dhiigga la qubay ee masaakiinta buugaagta jaamacadda oo muuqaalkoodu uu qariyay xinjirta dhiigga muslimiinta iyo hilbaha carruur saqiir ah oo bilajir ah hooyooyin dhabarka ugu xamaalayay ubadkooda aabbayaal dhididkooda ugu shaqaynayay qoysaska nugul iyo ardaydii noqon lahayd mustaqbalka dalkan ayaan ku weynay dilka dulmiga xambaarsanaa ee argagixisada al-shabaab ay fuliyeen caado iyo dhaqan ayay u tahay alla ka been abuurashadiisa qalloocinta aayadaha qur-aanka kariimka ah ee eebe iyo ku digashada axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana intaa dheer qiraalka cad ee ummadan caraysan uu la soo hor istaagay foolkudhiig lacali dheere maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday 2 Jamaadul Awwal 1441 hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano ex control afgooye ee magaalada Muqdisho halkaas waxay mujaahidiintu weerarka kula beegsadeen koleeyo cadow ah weerarka ayaa khasaare naf iyo maalba isugu jira gaarsiiyey cali dheere waxa uu yiri qadarta alle ayay ku dhacday in gaadiidka dadkaasi muslimiinta ah ay saarnaayeen uu ku xayirmo goobta ayna ku dhintaan kulligood qiil ma noqon kartaa waan ka xumahay boqolaal dhiig muslimiin ah ayaan daadiyey si xaqdarro ah diinta alle waa diin naxariis waxa ayna u taagan tahay badbaadinta nafta muslimiinta hadallada cali dheere waxaa ka muuqda aqoon dari diimeed xishood la'aan alla ka fogaansho dheeri ah iyo banaysiga dhiigga maatida muslimiinta ah ee Soomaaliyeed
waxa uu yidhi foolkudhiigle Cali Dheere waa ay bannaan tahay in gaalada lagula diriro haddii ay ku dhex jiraan muslimiinta, xitaa haddii ay ka tiro badan yihiin oo la og yahay in ay ku dhimanayaan kulligood. waa taas taliisha cad ee banaysiga foolkudhiigle Cali Dheere ee uu ku caddaynayo in al-shabaab aysan aqoonsaneyn ku dhaqanka diinta islaamka kana been sheegayaan. alle ayaa qur-aankiisa ku sheegay in qof muslim ah dhiiggiisa la daadsho ay uga fududahay dunidan weyn oo la rogo, laakiin Cali foolkudhiigle waxa uu banaystay in si macno la'aan ah loo qubo dhiigga muslimiinta ah ee alle uu xaaraantinimeeyey. dowladda iyo shacabka muslimiinta ah ee Turkiga oo horumarinta u ifinta dalkan baal dahab ah ku leh ayay ka dhigeen duulaan shisheeye oo ku soo duulay dalkan, laakiin waxa ay la micno tahay in al-shabaab ay beri ka yihiin taaka walba oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ku taliyay in la iska dhiciyo oo la dilo maleeshiyada khawaarijta ah ee al-shabaab. xiri Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam man qatalahum kaana awlaa billaahi minhum. qofkii la dagaalama nimankaa oo laaya ayaa ilaahay oga dhow. axaadiis badan oo nebiga wuxuu sheegay inay yihiin horta in la layn karo. faidaa laqiitumuuhum faqtuluuhum buu yidhi laaya, haddii kale moogtay ummaddayba dabar goyne laaya. Sheekh Maxamuud Sheekh Cali Dheere agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo Sheekh Cabdulaahi Axmed Guruun ayaa fasiraad sax ah ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray horjooga Cali Dheere. hubka lagu dagaalamayo oo qof lagu baacsanayo, qof lagula dagaalamayo ama shakhsi lagula dagaalamayo, hub xadidan oo qofta aan dhaafi karin waa inuu ahaado. hadduu ka gudbo meeshaas waa xaaraam, waana hadaf la'aan, waana jahli oo jaahiltinimo. nabigu wuxuu leeyahay qofka mu'minka wuxuu ku sugnaanayaa fi fusxatin min diini ma lam yusib daman harama. hadduu dhiig gardarro ku daadiyo waxa way ciriiri buu adduun iyo aakhiro gelayaa. nabigu uu dhaartay haddana uu dhaartay wuxuu yiri walladii nafsi biyadihi la ya'tiyana ala naasi zamanun la yatri al-qatilu في أي شيء قتل ولا يتري المقتول في أي شيء قتل. waxaad moodaa xadiiskaas inuu tilmaamayo dhacdadii ka dhacday ex control iyo kuwa lamid ah oo kale. Sheekh Cabdiqani Qorane Maxamed oo isna ka hadlayay weerarkii bahalnimada ahaa ee al-shabaab ay ku laayeen dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay sida al-shabaab ay u baalmareen diinta islaamka. runtii waxay ahayd musiibo aad iyo aad u weyn, waxaana uu ahaa xasuuq arxan darro ah oo aad u xanuun badan oo xambaarsan ayna ka muuqato cadowtinimo iyo arxan darro ana ka suurtoobin qof diin iyo damiir leh. sidoo kale waxa uu yiri Sheekh Cabdiqani Qorane ganacsatada Soomaaliyeed iska diida oo joojiya dhaqaalaha aad ku taageereysaan al-shabaab laguna gumaadayo shacabka Soomaaliyeed ee abrida ah. haddaba waxaan leenahay ganacsatada xoolihii la bixinayay oo sida xaq darrada la idinka qaadayay haddii aynan idinku ku badbaadaynin, ehelkiina aanu ku badbaadaynin, maalkiina aanu ku badbaadaynin, dadkii magaalada deganaa oo maxaa la yiraahdaa camirayay aysan ku badbaadaynin, in si kale loo fikiro miyaysan ka habboonayn in lacagta lagu shubo meel uu halaa ka imaanayo? miyaysan habboonayn in la xoojiyo dowladda si ay ugu tabaraysato iska dhicinta iyo iska caabinta iyo ka hortagga iyo soo afjaridda ee nimankan caadaystay ummadda baabi'inteeda? dilka aan kala go'a lahayn ee caamada iyo culimada ay kula kacayaan kooxda yar ee diimlaawayaasha ah waxa ay tusaale cad ay u tahay in aysan jirin sabab loo aamuso ama indhaha looga qarsado sida ay ku taliyeen culimada waaweyn ee dalka. waxaana waajib ah in shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan la dagaalanka maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab. waa tahay warbixintaas aan intaas uga gudubno. Faysal Muuse Maxamed ayaa diyaariyey, waxaase soo jeedinaya Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino. barnaamijka xogta xag jirka ayaad kula socotaan daawadayaal iyo dhegeystayaal. markana qaar ka mid ah qoysaskii saameynta gaarka ah ay ku yeesheen weerarkii argagixisadu ay toddobaadkii lasoo dhaafay ka geysteen ex control afgooye iyo saameynta ay noloshooda ku yeelatay markii ay meesha ka baxeen dadkii u khidmaynayay. qaar ka mid ah ayaan idiin soo gudbin doonaa oo aan hoygooda booqanay
si aan ula soconno ama aan idinkula wadaagno macluumaadyada la xiriira noloshooda sida ay tahay iyo saameynta ay ku yeelatay ficiladii foosha xumaa ee argagixisadu ay ku gumaadeen dad badan oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. dhibane Xaliimo Maxamed Axmed iyo Iisha Abuukar Maxamed labaduba waa laba haween Soomaaliyeed ah oo raggoodii ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkaas Ex Control Afgooye. waxaan booqanay hoygooda si aan noloshooda u ogaano iyo isbedelka ama saameynta ay ku yeesheen markii raggoodii ay weerarka ku waayeen oo qaarkoodba aan la helin jirkooda. waxaa diyaariyay warbixintan soo socota Maxamed Tarsan. makaahiil cabdulqaadir maxamed oo mid uun ka ahaa dadkii uu salfaday qaraxii 28kii bishan ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho waxa uu ahaa xoogsade ku xamaasha gaarigacan uu quutal daruuriga ugu raadin jiray qoyskiisa oo ka koobnaa 8 qof. Mashada aajigeesi aad iyo aad ayaa ugu nacay geeridiisa 6 ilmo uu igu tagay 6 ilman maanta wax aan siiyo ma haysto. siduu subaxa u shaqo tagay dib looma arag nolol iyo geeri toona 2 cisho oo lagu raad joogay nasiib darro meydkiisii ayaa la aqoonsan waayay waxaase la xaqiijiyay inuu ku shahiiday qaraxii galaaftay dadkii marayay Ex Control Afgooye. goobta as ku dhintay aba shalay soo arkay meesha as fadhiisi jiray oo marka oo as shaqada ka soo bog meesha as fadhiisi jiray martaas ku dhacay qarax. shilimaadka uu shaqeeyo oo aan 100,000 oo shilin ka badnayn ayuu ku maareyn jiray nolosha qoyskiisa balse wuxuu go'ay isagoo hawl maalmeedkiisa ka haya goobta qaraxa uu ka dhacay. wallahi siiba us arko 30 ha noqoto 40 ha noqoto si arkaan oo sii jiray waxba ma xisaabnaan 40 Soomaali 40 30 ha noqoto siiba us ay helaan kan jiray. wuxuu ka shaqeeyay xaaji gaar gacan loo ahaa gaar gacan la wada. isaga iyo qoyskiisu waxay ku noolaayeen gurigan oo ka samaysan jiingado iyo qoryo oo ku yaal deegaanka Tareydisho ee duleedka Muqdisho. waxaa mar qura damay shumicii gurigan ifinayay qolkan 2 habeen looma soo hurdo tagin tanina waa sariirtii uu ku seexan jiray oo cidlo ah. aad wax isku bedelay ilaa haatan wax ma karkuyo ilaa had murugsanahay. halkan waa guriga Xaliimo Axmed Maxamed iyo Iisha Abuukar Maxamed oo labadoodii say ku waayay qaraxii Ex Control Afgooye ka dhacay 28kii bishan. waxay ka tageen caruur gaaraya 18 cunug iyagoo midkoodna uu ahaa gaari gacanle kan kalena uu ahaa fuundi dhisa guryaha. meydadkooda weli lama helin waxaase loo xaqiijiyay inay geeriyoodeen. maxamed axmed maxamed isna waa aabe dan yar ah oo ifka uga tegay 12 caruura iyo 2 xaas oo ku shaqaysan jiray xirfadda farayaamada. waxa uu ahaa fuundi dhisa guryaha iyo sandaqadaha oo uu ku biili jiray qoyskiisa. waxaa noloshiisa galaaftay qaraxii argagixisanimo ee Ex Control Afgooye ee Muqdisho. xaaladiisa muddo 20 daqiiqo malaha soo waxay dhahay Ex Control joogaa hadda Ex Control joognaa ilaa wax yar kadib qaraxii dhacay hadaan telefoonkiisa waxay uu dinsanahay 2 beri uun baa laga joogaa goortii uu geeriyooday. durbadoorkiisii ayaa meesha ka baxay maqnaanshihiisii si laxaad leh baa loo dareemay oo maanta dab looma shidin caruurtii cunadii waa idlaatay. guriga dhisi jiray meel loo soo waco mas'uuliyinta waxaas sameey jiray ilaa hadda waa kurbeysanahay maanta 3 raashin afkeyga masaarin nolosheena qoyskooda wax weyn iska bedeshay ilmihii hataa aanama u haysto wax kale iska dhaafnay. maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho. aad iyo aad buu mahadsan yahay waryaheena Tarsan oo warbixintaas nooga diyaariyay qoyskaas Soomaaliyeed ay ragooda ka baxeen oo mid kamidana uu ahaa gaari gacan leh halka midka kalena uu ahaa fuundi ama ragga ka shaqeeya qaybta dhismaha. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxay kamid ahaayeen dadkii Soomaaliyeed sida xaqdarrada ah loogu laayay weerarkii 28kii bishii la soo dhaafay December ka dhacay Ex Control Afgooye ee ay
al-shabaab ku laayeen dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. haddaba dhinaca kalena waxaan warbixinta soo socota idinkula wadaagi doonaa hadduu alla idmo dhibane xaliimo xasan oo qaraxaas ama weerarkaas al-shabaab ay geysteen ku weysay saygeedii wiil ay dhashayna uu ku dhintay. sidoo kale waxaa iyana dhaawac halis ah weerarkaas ka soo gaaray wiilkeedii gabadhii u dhaxaysay ama gabadhii u dhaxday oo iyana xaalad kooma ah ku jirta. nolosha reerkaas iyo saameynta gaarka ah ay ku yeelatay ama uu ku yeeshay weerarkaas oo ay ku weysay ninkeedii wiilkeedii gabadhii uu qabay wiilkeedana xaalad kooma ay ku jirto. nolosha reerahaas ayaan iyana warbixinta soo socota ku eegi doonaa. waryaheena mawliid maxamed sabriye ayaa booqday oo warbixintan ka diyaariyey. daawadayaal markanna waxaan joognaa xakaamka loo yaqaano Quraysh tabeelaha Sheekh Ibraahim Gacal ee ka tirsan degmada Kaxda. halkan waxaa ka jira tacsi waxaa ku geeriyooday oday lagu magacaabo Muumin Malkad Yuusuf iyo wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Cabduqaadir Malkad Yuusuf. dadkaasi waxa ay ku geeriyoodeen qarxii masiibada ahaa ee shalay ka dhacay Ex Control ee magaalada Muqdisho. wiilka iyo odayga isdhalay ee qarxa ku geeriyooday ayaa waxa ay mehnadoodu ahayd farsamo yaqaano. haddaba waxaa sidoo kale isbitaalka yaala oo iyana dhaawac ah gabar uu qabo wiilkiisa Cabduqaadir Malkad Yuusuf oo iyadana xaaladeeda kooma ku jirto. odayga lagu magacaabo Muumin Malkad Yuusuf oo qarxa ku geeriyooday waxa uu ka dhintay 4 xaas ah oo dhammaantood halkan wada degan. halka wiilka uu dhalay Cabduqaadirna uu ka dhintay 1 xaas iyo 4 caruur oo ismaqada ah. haddaba daawadayaal aan booqano xaafadan ay wada degan yihiin si aan u ogaano bal xaaladooda. daawadayaal caruurtan yaryarka ah oo aad hadda arkaysaan waxaa ka geeriyooday allaha u naxariistay Cabduqaadir Muumin Malkad oo qarxii masiibada ahaa ee shalay ka dhacay Ex Control ku geeriyooday. halka hooyadii dhashay oo lagu magacaabo Faadumo Axmedna ay iminka dhaawac culus oo ay ka soo gaaray qarxaasi ay ugu jirto isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho. caruurtii waa kuwana hooyadoodna waa dhaawac culus odagiina waa ka dhintay. hooyadana waa hooyadii dhashay Cabduqaadir oo Cabduqaadirna aabihiis Muumin Malkad Yuusuf uu ku geeriyooday isla qarxaas oo 4 xaasa uu ka geeriyooday oo ay ka mid tahay maamadan Xaliimo Xuseen. bal ka waran sida uu yahay dareenkaaga oo u soo noqon doona caruurtan. dareenkayga aad iyo aad u culus yahay inaan ilaahay daryeelo wiilkaagi iyo odaygaygi oo israaceen hal gaari lagu qaaday laba xabaal laga kala dhigay oo daashkayga laga qaaday gabarna garaab ii tahay caruurtan ii dhashay wax hadda ii soo xamaalayo saacaas oo hadda oon ku daryeelayna ay jirin. wallaahi waxaan codsanayaa gaajadayga in lay daboolo odaygii oo ilaahay ku darnaaday oo salaadii ku dheelma jiri وهذا أسوق ميت كيس لو وضع على شيء سكال داتن وقولك له وكاني الكام بالله ودخي الكام بالله وكرفني ميت كيس صالو قاضي يركي كلا كسكر دعي يركي كلنا ولا القاضي والكيس عبد القادر ناكتي سنة صالة بريء إسارنته صح وواحد الداب أو إسبتال كي كوجسان إسبتال كد وحي كوجرتاي ديكفير ها قلينا الله عيد السدوية قلينا الوصمينو يا من العلاش وقال كذا ما جواسدي وقال كذا من كان هدي دوالك وال ننسو قلاي ملها هاي مش هاي عرورتك كورا عرورت أفر واي أفر تاسني ويرير عبد القادر كدنتي وعبد القادر كدنتي هو يدينا داوع كتاي هو يدينا داوع كتاي هاي والله عرور والله عرور وصدح ليال يصدح قبلوت داوديال markana waxaan joognaa la joognaa xaasaska laba xaasas oo uu ka dhintay Allah u naxariistay Muumin Malkad Yuusuf inaga hore u soo aragnay mid ka mid ah xaasaskiisii kuwa halkan fadhiya waa Madiina Abuukar Isaaq oo ka mid ah xaasaska uu ka geeriyooday Muumin Malkad Yuusuf iyo Naciimo Axmed Ibraahim oo iyana ah xaasaskii uu ka geeriyooday مريم ملكة يوسف هذا أنا حشالي أردك أنا أردي إلى إسبتال مدينة كلية يعني لوكتي شالي أنا حنا لي كان حال دي ما شاء الله الحمد لله في عرفت خبر بالحالة دي
mawliid maxamed sabriye aada buu mahadsan yahay oo qoysaskaas soomaaliyeed aabbihii iyo wiilkii ama wiil ka mida reerkaas iyo gabadhii u dhexaysay oo iyana xaalad khatara ku jirto reerkaasna runtii saameynta ay ku yeelatay weerarkaas ama uu ku yeeshay weerarkaas argagixisadu ay ku laayeen boqolka qof oo dadka ku dhow soomaaliyeed aan waxba ka galabsan iyo warbixintaas intaas haddaan uga gudubno markana waxaan iyana idinla wadaagi doonaa oo warbixinta soo socota oo diyaariyey wariyaheena ibraahim guudle isxaaq uu ka diyaariyey hooyo maryan macalin axmed oo iyana wiilkeeda ku weyday weerarkaas al-shabaab ay ka geysteen ex control afgooye saameynta weerarkaasuu ku yeeshay wiilkeeda oo reerka masruufi jiray iyo markii uu meesha ka baxay saameynta gaarka ah ee ay dareemeen xilligan warbixintaas ayuu wariyaheena ibraahim guudle booqasho ugu tagay noona diyaariyey. waxaan ku sugannahay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho gaar ahaan guri uu ka deganaa halkaasi ilaahay ha u naxariistee marxuum cabdiraxiin axmed yalxow oo ka mid ahaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxii argagixisnimo kooxaha naflacaariga al-shabaab ay 28 bishan ay ka geysteen isgooska ex control afgooye ee magaalada tan muqdisho ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo cabdiraxiin iyo guud ahaan intii kale ee muwaadiniintii Soomaaliyeed ee halkaasi ku shahiiday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo meel walba ay joogaan ilaahay samir iimaan naga wada siiyo kuwii ku dhaawacmayna caafimaad degdeg ilaahay ha siiyo cabdiraxiin halkan ayuu deganaa oo gurigiisa halkan waxaan u nimid in qoyskiisa iyo eheladiisa guud ahaan aan la qaybsano murugada iyo tiiraanyada maanta ay dareemayaan maadaama uu ahaa qof lafdhabar u ah bulshada isla markaana gaar ahaan guriga noloshiisa gacanta ku hayay cabdiraxiin oo sheekadiisa noogu sheegay inuu ahaa qof markaasi dhalinyaro isla markaana gelin wax baranayay gelin u shaqaynayay gurigiisa oo hooyadiisa macaan markaasi noloshiisa maareynayay marka guriga waxaan u nimid in markaas aan qoyska aan murugada iyo tiiraanyada aan la qaybsano kadibna aan kala sheekaysano cabdiraxiin guriga kaalinta uu ku lahaa nolosha guriga maadaama ay adag tahay qof hooyo ah qofkii kaliya u dhaqdhaqaaqayay oo ay fiirsanaysayna maanta geeriyooday misna ku baxay gacan ka xaq daran oo kooxaha argagixisadu ay oobsadeen isla markaana sababtooda uu ku geeriyooday cabdiraxiin kaliya ma geeriyoon ee waa uu shahiiday waxuu la mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee ku shahiiday weerarkii argagixisnimo ee kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab ay ka geysteen 28 bishan isgooska ex control afgooye ee magaalada tan muqdisho guriga ayaan gudaha u galaynaa si aan wax badan ugu ogaano nolosha guriga sida ay tahay cabdiraxiin ka hor sida ay ahayd iyo kadib geerida sida ay tahay waxaan cabdiraxiin noo sheegay oo xusid mudan daawadayaal in aaskiisa cabdiraxiin markii la aasay uusan jirkiisa dhameystirnayn oo qayb ka mid ah la helay taasina ay tahay wax aad looga xumaado runtii ayna adag tahay in laga sheekeeyo daawadayaal waxbayaan idinkaga sii sheekayn gudaha ayaan guriga u gali doonaa hadduu alla idmo si aan u soo aragno nolosha guud ee guriga hadda sida ay tahay iyo noloshii cabdiraxiin sida guriga ay ahayd السلام عليكم قدرتها في عندها حال دكتور ما شاء الله في عندي خير عفنا ما شاء الله انت لما تلاقي ونحريسته وراك إلهي ونحريسته ونحريسته ما شاء الله طيب مع زيتها في عندها حال دكتور ما شاء الله إلهي ونحريسته ولكن أنا دون نقول التجي بدون كان عندك وارث ملها ولك الهريال ما هني عندك وارث أنا جيرن anagoo dareemi karna xanuunka iyo murugada ay leedahay qof xilligan oo kale guriga qoyskiisa gacanta ku hay noloshiisa hadana baxay gacan ka xaq daran dishay uu shahiiday maanta asaa shahiid ah ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midig Allah ka siiyo ilaahay anagoo dhan wanaga wada baxee qof walaalkeen oo haay samray iman Allah ilaahay naga wada siiyo ilaahay hooyadna qalbiga ku qaboojiyo oo ilaahay anaga dhanna anoo wada naxariista dunia aakhirada إلهي نحرس جناك ورابي مركو حاربنا إن حوجا ير
anagu waxaa ka soconaa telefishinka qaranka waxaan rabnaa dadkii Soomaaliyeed halkaasi ku shahiiday oo dhibaatada soo gaartay inaan la wadaagno ama la qaybsano tiiraanyadii murugada ay dareemayaan marka waxaan rabnaa in xoogaa yar taariikhdiisa walaalkeen Cabdiraxiin iyo kaalintu kaga jiray nolosha guriga maadaama uu ahaa qof gelin la shaqaynayay oo nolosha gurigiisa maareynayay gurigooda marna ahaa qof arday wax barta iyadoo xaaladan lagu jiro ahaa taasaan rabnaa in waxyar nooga sheekaysan hadduu alla idin mar kalena ina lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa idin kaga tacsiinaynaa ilaahay walaalkeena ha u naxariisto marka xigta Cabdiraxiin da'diisa iyo wuxuu qabanayay kaalinta guriga nolosha guriga uu kaga jiray inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun yarkay kaalinta guriga uu jiray xilina iskoolka uu dhiganay xilina walaxu kaalinta guriga uu ka qayb galay waxaa waaye hooyo Soomaaliyeed cunugeeda dhintay waa fahmi kartiin waxay tahay yarkay agoon oo hay aabiis mar hore dhintay gurigana asaa maaray jira yaa qajiri waxa ku 22 sano jiray subaxii salaadii oo dukaan ka kaxay salaadii dukaday wiilkay isla shaqeynaa soo wacay arday qaadayeen ardaydii oo qod ka qaadi waxaan maqlay 6 saac aniga subaxii hore qaraxa aan maqlay ma fiixaysan ma fiirin 6 saac cunug socdo yimid oo Cabdiraxiin wuxuu dhahay wiilkaagi iyo wiilkii la socdo baa la ayaa markaas ka bacdi ama ka baxay subaxii oo dhan waa raadinay maalinkii dambe aan raadiyay shalay galab 10 saac midkiisu aan xalay 3 saac aan barakad ku soo duugnay xilliga dambe uu shaqeynaa xilliga horena wuxuu dhiganay inuu yaro aqoon oo biis mar hore dhintay anana wax iska haysana sabool oo ahay waxaa hadda gacanta ku haynaa oo na tusay buugaagtii isaga wax ku baranayay maadaama qof arday uu ahaa gelin shaqaynayay gelin waxbarasho ku jiray Cabdiraxiin sida buugaagtiisa aynu ka aragnay maadaama hadda iskuulaadku ay xiran yihiin oo fasax lagu jiro waxa ugu dambeysay iskuulka uu casharkii ugu dambeeyay uu soo qaatay taariikhda oo ah 8 bishan 12aad oo December oo sii dhamaanaysa sanadka 2019 oo ah muddo ka hor 22 maalmood ka hor ay ugu dambeysay Cabdiraxiin wuxuu ka mid ahaa ardadan oo sanadkan iskuulka dhigaysay Cabdiraxiin Axmed Yelxow khaasatan ardada primary-ga ama dugsiga dhexe ah ka mid ahaa fasalkiisa waa grade 6 si oo haddaan guda galo Cabdiraxiin arday da'diisa iyo waxqabadkiisa aad u kala fog yihiin oo ahaa maxaa yeelay arday dugsi dhexe inuu noloshii qoyska dhan asagu maareeyo gilinka dambe gilinka horena uu iskuul dhigtaahay wax Soomaalida ku badan maahan arday haba soo khaas la ahay Cabdiraxiin waxqabadkiisa iyo da'diisuna marka la isbarbar dhigo waa nin da'diisu yarta laakiin waxqabadkiisu u badnaay waxaan ku sugannahay iskuulka Haroun Al-Rashiid oo ku yaala degmada Yaaqshiid magaalada tan Muqdisho waa halkii uu dhiganayay ama wax uu ka baranayay Ilaahay ha u naxariisto Cabdiraxiin Axmed Yelxow oo ka mid ahaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxii argagixisadu 28 bishan ay ka geysteen isgoyska Ex Control Afgooye hadda meesha aan fadhino waa booskii uu lahaa ama fasalka halkii uu ka fariisan jiray waa halka aan fadhino Allah u naxariisto Cabdiraxiin Axmed Yelxow naxariistii janna Allah ka waraabiyo isaga iyo intii kale halkaasi ku geeriyootay intii dhaawacan Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo meesha guriga sugaa kulli wax soo gali jira isaga ay shaqay jiray gaarkii naxariis janna Allah ay siiyo isaga guriga iyo waxay keeni jira baariyoon yahay Ilaahay maanta ma akhiro jannada ay geeyo آمين وكل قبسان مرغب عنو يارو iska daayaro ahay عنو aad iyo aad u firfirqoono ahay hadii adduunyada uu joogo hadana maaragtay ahlu janna Allah nooga dhigo anigu abkoodkiisaan ahay jilinka hore waxbarasho isgoolaad oo maaragtay hay jiriyay oo wax ka bara jiriyay jilinka dambana
qoyska gurigan ku nool caruur yar yar asaan maaragtay asiga ku aabba ahayn oo hooyadiis gadaashiisa dhashay iyo hooyada iyo gibirka odaya intaasoo haddana gilinka dambe maaragtay uu shaqay jiriyo oo adiga wixii ilaahay gacantiisa soo geliyo oo maaragtay ku masruufi jiriyay oo xagga rabbi ilaahay uga soo dhiibo halkan waa dabakaayo ama dukaan yar oo Cabdiraxiin ay leedahay hooyadiis ilaahay xafido maam Maryana iskale waxay qayb ka ahayd meelaha guriga noloshiisa lagu dibiri jiray oo Cabdiraxiin wixii uu soo shaqeeyo in alaab lagu soo gado meeshan la saaro si loo iibiyo nolosha guriga loogu maareeyo taas waxa sababteeda lahaa oo u shaqeyn jiray guriga Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxiin oo ku shahiiday qaraxii argagixisadu ay geysteen 28kii bishan marka dawakaydii hadda waa ay xirantay maadaama qofkii kaliya u shaqeynayay oo wixii uu ku soo dhidido ama uu soo shaqeeyo la geliyo si loo iibiyo nolosha guriga loogu maareeyo oo geeriyooday rabbi ha u naxariisto waa ay xirantay wax la saaro lagu iibiyay male sababtan waxa ay tahay maadaama Cabdiraxiin uu guriga u shaqeynayay asna uu ku geeriyooday falkii argagixisadu ay geysteen dabakaayadu ay xiran tahay waxay la mid tahay marka in nolosha qoyska Cabdiraxiin ilaahay u naxariistay qoyskiisa maam Maryan hooyadiis ay ka mid tahay hadda noloshu ay aad u liidato waxaana markaasi taas sababteeda iska leh oo dhibaatadaas geystay kooxaha naflacaariga al-shabaab oo mar walba u taagan daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan haddaba weerarkii 28kii December ee bisha la soo dhaafay ay argagixisadu ka geysteen Ex Control Afgooye waxa uu ahaa weerar aad u xanuun badan oo bulshada Soomaaliyeed kiciyay dareenkooda iyo runtii dhibaatooyinka aan marnaba loo dulqaadan karin iyo ficilada naxariis la'aanta ah ee al-shabaab ay mar walba bulshada ku bartilmaameedsadaan waliba ay sheegtaan oo ay ku faanaan in dhiigaas muslimiinta ah ee daatay ay iyaga si ku talagala u daadiyeen waa arin aad u cajiib ah oo dadka Soomaaliyeedna aad uga fajicisay markii Cali Dheeraha u hadla al-shabaab uu si cad u qirtay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkii Ex Control Afgooye bartilmaameedkooduna uu ahaa inay intaasoo dada laayaan sida Cali Dheere hadalkooda ama hadalkiisa laga dhadhamin karay si jees-jeesa ayuuna qaar ka mid ah dadkii meesha ku dhintay ugu tacsiyay laakiin xaqiiqadu waxay tahay in argagixisadu aanay marnaba kala jeclayn inay shacab disho iyo inaanay dilin waana sababta rasmiga ah ee argagixisadu aanay u nixin oo tan iyo markii 2006 ay Soomaaliya ka asaasmeen ilaa hadda ay boqolaal qaraxyo ah ku dileen boqolaal kun oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan walina al-shabaab ay u onqabaan daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed barnaamijka xogta xaq jirka ayaa la socotaan daawadayaal iyo dhageystayaal radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka Soomaaliya ayuu barnaamijkeeda kaga imaanaya markana warbixintan soo socota markii weerarka u dhacay kadib iyo sida qaar ka mid ah dadkii maalintaas goobjooga u ahaa wixii ay arkayeen iyo in noloshooda ay dib u bilowdeen oo goobihii ay al-shabaab burburiyeen ay dib u dhiseen warbixin la xiriirta waxaa noo diyaariyey Cabdullaahi Maxamuud Qorshe والله إلا شال أنا أفكي وح مجلين إلى بقى قصر مركان ضدك وبابا أو البهو دي ضد ولا حيدا كودا جوين أركي إلا ساعدنا أفكي بيئة وحنا ويجد دقيقين حلوان سياحة واي خندان كسياحة حال يمره ولا وقت هو يقول لي أنت سويت ذا بالنير waxaa weli maskaxdeeda ka guuxaya dhacdooyin murugo leh oo saameyn culus ku yeeshay qalbigeeda taa oo goobjoog ay u noqotay ilmo yar cunug yar oo 3 jira oo hooyadeed la waayay ayadana meesha taala xataa waan aragnay oo waxa dadkeeda ilaa hadda meel lagu sheegay kameelaana bir ka gashay intaan camal ah go'need cunugta aroor hore ayay u soo shaqo tagtay goobtan yar oo ay ku iibiso cunooyinka laga sameeyo dalagyada beeraha iyo shaaha maqaayadeeda waxa ay ka samaysan tahay jiingada yar oo la isku dhadhajiyay balse waxa ay goobjoog u noqotay dhacdo aysan filanaynin nolosheeda inay soo marayso baawurka dhanba uu bas beelaba qiiciya naga qariyay in meesh maraayeen waa u jeednay laakiin waan aad weyn holac baa ka sokeeyay holacaas aan u jeednay qarax ayaa gabi ahaanba baabi'iyay maqaayadeeda iyo dukaamadii kale ee ka agdhawaa
waxaa sidoo kale burburay guryo ka agdhowaa maqaayadeeda oo ay degganaayeen dad rayid ah. meeshan waa nugu dintay luuqaasaan ka baxnay buushka dhan wuu soo dumay dabkii wixii dhammaan siday noogu shidnaayeen mushaariyada waa noo qarsaneed waa iska ganacsanayna alxamdulilah waaye mid foolxumo badan baana soo martay oo murugo leh wallaahi qofkii Soomaaliya wuu qiiroonay 24 saac kadib weerarkaasi wuxuushnimada ahaa ayaan Muna Shariif Maxamed ku booqday maqaayadeeda waxay ii sheegtay in aroor hore oo saakaya ay dib u dhistay goobteeda ganacsiga isla markaana ay bilowday shaqadeeda caadiga ahayd waxaa xilliga ay sameeynaysay cunooyinkii lagu yaqaanay dadkuna si caadi ah ayay u imaanayeen goobteeda ganacsiga shala anaga waa joognay markuu qarax dhacay inta ku cararnay laakiin dadkii muslimiinta ku baaba'ay shacabkii Soomaaliyeed indhayga wallahi wax falxumo badan aan ka sheekay karin aan ku arkay wallahi dadkii hore madaxyada ka wada go'ay oo gaariyaashii saaran oo aan ka degin mootooyinkii sidoo kale waxa dhan wiilal badan oo aan aqaan meesha mushaarida iyo naga cabi jira joogay wallahi tasaan ka sheekay karin way taas oo in fara badan aan soo martay Muna Shariif Maxamed waa hooyo korinaysa 5 caruur ah oo aabahoodu dhintay waxa wajigeeda ay ka dheehanayay inay ku faraxsan tahay shaqadan ay hayso laakiin waxay Muna tusaale cad u tahay sida bulshada Soomaaliyeed adkaysi ugu leedahay dhibaatooyinka ka soo gaaraya kooxaha argagixisada ee aanu naxaynin u dhisno macnii qotul duruurigeena ku jira aniga ilma agoona haystaayo aan meesha alyoon uga raadsado abtigay waa kana habarirtay waa tan meeshan ka wada shaqaysanaa anaga dhan waa ka meel aan haddaan ka seexan karno waan seexaleen maanta guryaheena joogleen ayadoo dhacdada shal dhacday maantana dabkeena aan iska shidana waayo wax naga dambeeyay male taasaan u kaliftay inaan soo aadno wallahi muddo aan yareen 4 sano bar meelahaas waan joognay mid ka horeysay oo wali wax dhibaato ilaahay nagu gaarsiinaa ka dhacday laakiin midaan kale mid ah wali nama soo marin ujeedada arxalaawayaasha shabaab ee weerarkan iyo kuwa kale ku gumaaday dadka masaakiinta ah iyo ardayda in shacabka Soomaaliyeed ay ka niyad jabaan dalkooda iyo horumarada ay higsanayaan qofkaas waxaan dhigi karnaa qof aan bilaadan baahan waayba Soomaan insaanimadan ku yar qof muslim qof shacab laynaya ilmiye waqti shaqo tagay ahayd oo 2 saac oo wax dhiman camal ahayd waqtigaas murugo xanuun badan ahayd ummadda muslimiinta ilaahay intii dhimatay samir iimaan Allah ka siiyo intii dhaawacmata Allah caafiyo annagana ilaahay noo soo gargaaro qof kale oo gacan weydiisanayna male ilaahay baan sacbad u horsanayna waa tahay daawadayaal iyo dhegeystayaal markana waxaa la soo gaaray mawduuca toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonaa al-shabaab weeraradaas ay geysteen ama guud ahaan dhibaatooyinka ay ka geysteen dalka oo ay ku laayaan boqolaal dad Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan islaamka muxuu ka qabaa way caddahay culimada Soomaaliyeed ayaase mar walba bulshadu u fasirta saameynta dhibaatooyinka ay argagixisadu u geystaan bulshada iyo waxa islaamku ka qabo oo dadku ay wada og yihiin inaan islaamku ku banaanayn daadinta dhiigga bulsho muslim ah xitaa kuwa aan muslimka ahayn aan xaq darro la dili karin Sheekh Maxamed Idris waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn toddobaadkan wadanka Koonfur Afrika waxa ku wareystay wariyahana Cabduqaadir Axad oo weydiiyay islaamku iyo waxa uu ka qabo ficilada manaxnimadu ay ka muuqato ee argagixisada ay ku bartilmaameedsadaan bulshada Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu xarimay naf oo dhan weeyay hada muslim iyo gaal naf oo dhan in xaq darro lagu dilo ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق موجودة إلهي سبحانه وتعالى أيضا بدن بكسا كلها النبي عليه الصلاة والسلام هديتها قفك مؤمن كان أو مسلم كا إسقى ديجيسة إيو مالكيسة إيو عرضيسو مسلم كلا حرام بكيه هذا يراته كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بالنبي عليه الصلاة والسلام ديجيسة إيو شرفتيسة إيو مالكيسة مدنا لما ضادين كرو النبي عليه الصلاة والسلام حليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 قف مسلمة ديجيسة لما ضادين كرو إلا صدح الرماد مو يعني قصاص إنه قال يسوي واحد لي الله قصاصه إنه قف جور أهر مري أو مارتي زنيستي هاي أو الرجل حد كرجم قال له قاضو إيو إنه قف دينتي سي بدلي أو يهاي أو محكمة دي هي شرعي يكسو حكمه تاسم بالودي لكرا انتبه وحوي وإنه صومرة
sharciga waa inuu soo maraa xataa arrimahaas dhiiggiisa lagu xalaalayna si kaleeto uma banaana waman yaqtul mu'minan mutacamidan qofkii qof mu'mina dila oo dhiiggiisa daadiya walakac iyo si kama iyadoo aan kama ahayn oo khata ahayn fajazaؤuhu jahannam wuu yihi ilahi subxana wataala khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima qof muslima uma cuntanto qof kaloo muslima inuu haba yaraatee dhiiggiisa daadiliyo wamaa kana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an gaf un bay kaga dhici kartaa mooyaane kaas waa markii hal qof la dilayo naf keliyow famaa baaluka ka waran haddii aad suuq dhan intaad timaado ama jid dhan intaad timaado muslimiin ay ka ganacsanayaan shaqooyinkooda u socdaan iskuuladooda u socdaan ayaan wada qarxinaya oo dhiigooda iyo hilibkooda meelaha ku daadinaya oo aanan u kala aabiyanahayn taasu waa jariimo weeye waa dembi weyn ka culus kuwii hadda aan sheegaynay diinta kuma banaana oo insaaninimada kuma banaana oo soomaalinimada kuma banaana dadka hadda soomaali way dadka soomaalida kaleeto gumaaday xataa dhinacay ku dhammaantay oo akhlaaqda kuma banaana oo xataa gaalo badan baanay ka suurtoobin xataa iska dhaaf muslime marka in haddana lagu magacaabo magac diineed waxaas wax jira maaha waa been ilaahay lagu abuurtay oo maaragtay islaamkii lagu foolxumeeyey weeye mana noqon karto qof muslima dhiiggiisa in lagu faano ama la yidhahdo ajar baa lagu qaadanaya ilaahayna uu leeyahay jahannama lagu gelaya argagixisada al-shabaab waxa ay dalka ka geystaan weeraro qaraxiyo dilal gaadmo ah iyo ficilo kale oo ay ku hobteen boqolaal kun oo dad muslimiin soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan welina kooxdu way u oonqabtaa daadinta dhiigga bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed waxay sidoo kale saameyn aada u xanuun badan ku yeesheen qoysas soomaaliyeed oo aada u fara badan qof kasta oo soomaaliyeedna waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay had iyo jeer ka geystaan dalka argagixisada qaar waalidiintooda ay u dhibtoobeen qaar saaxiibadood qaar caruurtooda qof walba waxaa hubaal ah in al-shabaab saameyn gaar ah ay jirto inay ku yeesheen weerarada iyo dhibaatooyinka kale ee ay dalka ka geysanayaan haddaba xubintan maxaad ku xusuusataa al-shabaab waxaan ku egnaa aragtidiina iyo mawaadiicda aad ka hadashaan ee la xiriira al-shabaab iyo dhibaatooyinka ay geystaan waxaana ku baahinaa barnaamijkan dadka codadka noo soo duuba kuwa muuqaalada noo soo dira iyo sidoo kale kuwa fariimaha nala wadaaga haddii ay jiraan oo barnaamijkan meelaha qaarka ah ee warbixinada naloogu soo diro aada nagula wadaagtaan gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka xogta xagjirka ee toddobaadkan ayaan daawadayaal iyo dhegeystayaal isla soo gaarnay inta aan barnaamijkan mid lamida ku wada kulmi doono hadduu alla idmo nabadgelyo